Assalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo jawaabaha su'aalo dhowr ah oo asxaab badan ay soo weydiiyeen kuna saabsan Maki. Ee, ilaa dhowr qaybood ayaan jawaabo ka bixi doonaa. Qaybaha aan ka bixi doonana waxaa ka mid ah sida appkan loola soo dego oo dadka qaar marka ay linkiga raacaan oo iska diiwaangeliyaan kadib ay waayaan oo kale meel ay dib uga galaan ciwaankii ay samaysteen. Waxaan kugu tusi doonaa marka sida looga soo degsado appka uu leeyahay Maki. Dadka qaar waxaa sidoo kale su'aalo iga soo weydiiyeen sida lacag loogala bixi karo. Waxaan ku tusinayaa marka qaabka lacagta looga bixi karo Maki. Waxaan ku hormarayaa marka qaybtan ah sideen appka ula soo degayaa. Waxa laga yaabaa marka qofka uu raaco linkiga tusaale linkiga aan YouTube-ka soo dhigay meeshan dhowr muuqaal mid kastaba linkiga aan soo raacinayay. tusaale muuqaalkan oo kale wuxuu lahaa linki qof markuu linkigan raaco for example uu Chrome ku geynayo linkiga markuu furo meeshaan uu imaanayo sooma waxaa laga yaabaa marka meeshaan inuu lambarkiisa geliyey uu graphic qaybtan ugu qorantaana uu nambarada meesha gifanka ah uu geliyey password uu samaystay kadib uu gudaha markuu galo waxaa laga yaabaa markuu ka noqdo meel uu dib uga laabto oo ciwaankii hore uu samaystay uu geliyey inuusan aqoon. Marka camal maxaa la sameeyaa marka waxaad samaynaysaa tusaale Chrome-kaada tegaysaa Chrome-ka markaad tagtid Google-ka sii tag. Google-a markaad tagno markaa Google-ka waa kana marka meeshaan waxaad ku qoraysaa h5.makihomes.com. Okay, search deh. Waa kana marka website-kan ku keenaya. Website-kan saa u jeedaan wuxuu ka bilowdaa https h5.makihomes.com log in sign up ku dhufa markaa soo fur website-kooda waaye qaybtan ku keenaya marka saa u jeedaan qaybtan markuu keeno qaybtan waxay uga duwan tahay qaybta aan linkiga ka soo raacisay. qaybtaas ma lahayn download app meel ay ku qoran tahay laakiin qaybtan hoos waxaa ku qoran download app meel ay ku qoran tahay oo halkan kala soo deg application-ka ah. Marka adigu ma baahnid inaad log in dhahdo oo lambarkaadii password-ka aad geliso because waa taqaanaa horena u soo samaysatay. haddaan hore usoo samaysan sign up aad dhigi kartaa oo intaa ka samaysan kartaa. Marka qaybtan log inta hoosteeda tegaysaa meeshaas download app aad leedahay oo ku geynayaa laba option oo Android iyo iPhone-iska oo kale inaad kala dooratid. Marka mobile-ka haysta ku xiran tahay labadooda mid aad dooranaysaa waa la soo degaysaa. Marka uu soo dego appka furaysa log in aad leedahay sidaas marka waxaad u helaysaa meel aad ciwaankaadii ka gashid. qaybtaas waa halkaas. Okay, qaybtan kale waxaan isku dayayaa marka inaan jawaabta ku saabsan sidee Maki lacag lagala baxaa. Aniga waa kan waxaa igu jirtaa $93 iyo 9 senti. lacagna waa kala baxay. waxaa jirta markaa lacagaha lagala bixi karo waxaa u yar $30 ayaa u yar. Marka qaybtan withdrawga haddaad tagtid oo kale meeshan record ay ku qoran tahay lacagii aad la baxday ayuu ku record gareynayaa. saa u jeedi marka anigu withdraw ayaan sameeyey. withdrawal state marka meeshan waxaa lagu sheegaa xaaladda withdrawga aad sameeyay ma pending mise waa completed. labadaas waaye. pending waxaa laga wadaa withdrawgaada waa sugaysaa go-aankiisa inta la gaarayo ama lagu soo fasaxayo ama xaalad kale ay noqonayso. markaan completed waaye shalay galabtii oo kale ayaan withdrawga dalbaday saaka oo kale 2 saac meelahaas ayuu lacagta ii soo gashay Binance-ga. marka caadiyan waxaa rules ku qoran in withdrawga uu qaadanayo
48 hours ama 48 saacadood gudahood. CJ appka asagoo 24 saacadood meelahaas inuu ahaa qiyaasaya, laakiin waa 48 saacadood waaye. laakiin waxaa laga yaabaa 24 saac wax ka yarba inaad ku hesho. aniga shalay 8 saac ilaa saakay subax 2 saac oo wax ka yar 24 saac ayuu withdraw igu soo galay. marka cash withdrawal amountiga aan sameeyay waxay ahayd $30 oo ah lacagta ugu yar ee la sameyn karo. marka qaabkee loo sameynayo waaye tusaale qaybtan meeshaan wax yar inaan kaa tusiyo ma USDD meesha ku qoran tahay USDD TRC20 ku dhufo. dad qaar markaa meeshan waa su'aalaha ugu badan meesha ka imaadeen oo ah wallet address-kan maxaa la gelinayaa. saa ujeedaan meesha waxaa ugu jira wallet address-kayga. wallet address-ka qaybta ah waxaad u baahan tahay qofka inuu leeyahay Binance account inuu leeyahay. Binance account-kaas gudihiisa wallet address-ka copy laga soo dhaxaa oo meeshaana markaas paste ku soo leedahay. intaan kale waa iska fududahay magacaadi iyo password-kaadi gmail-kaadi xaqiijintiisa waaye. marka Binance-gaan tagaynaa waxaan ku tusinaa wallet address-ka meesha laga keenayo. Binance-gayga waa kana wallet address-ka waxaa laga keenaa meeshan. hadda saa ujeedaan aniga waxaa igu jirta lacag yacni meeshan waxaa igu jirta $29 USDD ah, qiimahaan u dhiganta doolarka marka loo bedelo $28.09 $30 waa data aan dhahay withdrawga sameeyay waaye $1 ayaga jartay. marka wallet address-ka meeshaan keenaysaa tusaale markaa rabtid inaad lacag withdraw kasoo dhahdo Maki oo aan kusoo shubo Binance-gaada inta deposit ka leedahay soo ma. marka qaybtan deposit ka taabanaysaa. deposit markaa dhahdid lacagta dooranaysa maxay tahay waa USDD aan doortay. network aan isticmaalayo badanaa waxaa la isticmaalaa Tron waa TRC20 kan ugu hooseeya. marka halkan ku dhufatid wuxuu ku keenay qaybta kan waa marka waxaa copy leedahay. meesha waxaa ku qoran USDD deposit address kana copy leedahay oo calaamadan labadan qaybood ah ayaad copy dhahaysaa. markaasaad baxaydaa waxaad ku noqonaysaa Maki-gaagii meeshan USDD wallet address-ka ayaad paste ku leedahay. sidaas marka withdrawga ayaad ku sameyn kartaa.